بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة يالكسو دوادا برنامج قارة وانكو ايغينو sidee bay dumarka ula dhaqmi jireen islaamnimada ka hor dalalkii carbeed ee markaasi jiray diinta islaamku si xaq noocay ayay u ogolaatay dumarka inagoo isbarbar dhigayna haddana dhaqankii carbeed ee jaahiliga ahaa iyo ka Soomaalida ee wanaagsan islaamka ka hor qabaa'ilka carbeed ee markaasi jiray waxay u arkayeen gabadha waxaan qiimo lahayn oo xaqiran haddii ilmaha reerka u dhashaa uu noqdo gabadh waxa lagu aasi jiray nolosha hadday qof dumar in noqoto mid weyn oo gabowdayna wax sharaf ah kumay lahayn agtooda inanta gashaantida ah waxay ku qasbi jireen inay jirkeeda ka ganacsato si ay dhaqaale uga hesho xagga dhaxalka xaq umay lahayn dumarku qaybteeda inay ka qaadato xoolaha dhaxalka oo ah ninkeeda wax xuquuq iyo tixgelin kumay lahayn inta goor ee gabadhu ay furmayso ma lahayn tiro go'an iyo xad uu isku taago dumarka guursigooduna ma lahayn tiro go'an iyo xad u go'an oo uu ku joogsado xaqna umay lahayn inantu inay doorato ninka ay iyadu guursanayso haddii aabbuhu uu ka tago gabadh taasi oo aan carruur dhalin waxaa dhici jirtay inuu guursan jiray wiilka bahda kale ugu weyn haddii kalena uu iska fasixi jiray isagoo u arkayay inay tahay dhaxalkii aabbihii oo ay la mid tahay xoolaha kale ee uu aabbihii uga tegay intaas kadib waxaa yimid islaamka isagoo oo ku dhawaaqaya xorriyadda gabadha iyo xaqa ay leedahay nolol la mid ah tan ragga ama mid ka wanaagsan reer Yurubna berigii hore waxay doodoodu ahayd qof dumari xuquuq ma leeyahay sida kan ragga mise ma laha waxay taariikhdu inoo sheegaysaa in dawladihii hore Greegu ay gabadha xaqiri jireen waxaanay dumarka u arkayeen wax hoose oo aan qiimo lahayn waxaanay xaaladdu gaadhay heer gabadha la qabo ama tan inanta ahba loo iibgeeyo suuqa oo la weydaarsada lacag waxay ahayd gabadhu mid laga xayuubiyay xuquuqdeeda madaniga ah iyo midda maaliga ah markii islaamku yimid waxaa yimid xaqii oo xambaarsan xuquuqda qof dumar leeyahay baadilkiina wuu laabtay waxaa la soo dejiyey aayado fara badan oo kitaabka qur'aanka kariimka ah oo Allah uu ku muujiyay xuquuqda qofka dumarka ah iyo in ragga iyo dumarku siman yihiin marka laga hadlayo xuquuqda bini'aadamka qayb ka mid ah aayadahaas oo tilmaamaya xaqa qofka dumarka ah leeyahay iyo mudnaanta islaamku siiyay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat waqti la weydiinayo tii yaraanta lagu dilay yaraanta lagu xabaal nololiyay dambigee ayaa lagu dilay ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا haddilina carruurtiinna idinka oo ka baqaya faqri annaga ariya arsaaqayna iyaga iyo idinkaba dilistooduna waa gaf weyn tani waa ogeysiis cad oo sheegaya inay habluhu xaq u leeyihiin inay u noolaadaan sida ay ragguba u nool yihiin waxayna halkaas ku tirtirtay jaahiliyaddii aaminsanayd in habluhu ka hooseeyaan ragga waxaana loo sheegay inay tani tahay gaf weyn oo bini'aadamnimo sidaasi le'eg bay u sheegtay asxaabta nabiguna xuquuqda dumarka waxa uu nabigu yiri naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee war dumarkiina u dardaarma khayrka taasi oo ah sida wanaagu ku jiro ku dhaqa ka idinku khayrka badani waa kiina ugu habdhaqanka wanaagsan xaqa dumarka waxaan siirada rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ku haynaa inaanu weligii dilin dumarkiisa oo uu ahaa tusaalaha ugu sarreeya xagga habdhaqanka dumarka diinta islaamku waxay siisay qof dumara waxay xuquuq lahayd waxaana lagu cadeeyay kitaabka Ilaahay oo uu sharaxayo sunnaha nabigeena xuquuqdaasi oo af iyo ficil ahaanba loo siiyay waxay u dhigantaa tala siiyay ragga marka laga reebo axkaamta ay keensatay dabeecaddu ama waxa ay qof dumar ahi la gaar tahay iyada oo waliba mar waliba si gaar ah loo ilaaliyay looguna naxariistay dumarka ilaa uu nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee yiri ma sharfo dumarka mid wanaagsan mooyaane ma yeeso dumarka mid liita mooyaane meel wanaagsan ayay diintu dhigtay dumarka waxaan ogsoonahay
qofkii ugu horreeyey ee naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha haatee suubanaha rumeeyey inuu ahaa sawjadiisii khadiija bintu khuwaylad radiyallahu canha. waxaan kale oo aan ognahay inuu qur'aanku inoo sheegay in nabigu la galay dumarka ballan ah inay nebiga la wadaagayaan hawsha iyo dhibaatada dacwadda oo aanay marnaba kaga baxaynin hawsha dacwadda. dhanka kale bal haddaba aynu eegno dhaqanka Soomaalida ee suuban iyo xuquuqda uu siiyey dumarka. waxa uu ka duwan yahay kan Carabta, waana uu ka wanaagsan yahay. haddii dagaal dhaco dumarka lama dili jirin, ninkii ay gabar ka soo dacwooto inta aan dad kaleba la gaarin, kuwa dad ugu xiga ayaan badbaadin jirin. ninkii damca inuu gabar guursado xoolo fara badan ayaa laga qaadi jiray. ninka ay gabar ka soo oydo been ha ka sheegta ama run diyadeeda kala bar oo xoolo ah ayaa laga qaadi jiray. ninkii gabar mustaqbalkeeda ku ciyaara xoog ama xeelad, wuxuu doonaba ha ku qaatee, waxaa sharci lama taabtaan ah ahaan jirtay inuu gabadhaas guursado. waxba qoraalka ayaan idinku dheeraynin dhaqankii Soomaalida hal meel kagama jirin in gabadh la dilo ama la xaqiro. dhaqankii quruxda badnaa ee ammaanta iyo sharafta lahaa waxaa bedelay jaahilnimo iyo qabyaalad. markii ay qabyaaladii timaado, adiguba waad og tahay inay meeshaas wax ku oolin oo lagu dhahayo naagaha waa loo hambeeyaa ama waa loo taliyaa. ma bilcaan ayaa noo talin karto, ma naag ayaana mateli karto. markii ay qabyaaladu idin faquuqday idinkuna aad taageeraysaan, haddaba xaggee ayaad xaq ka helaysaan? haddii aad samayso ama aad ku sifaysan tahay calaamadahan hoos ku soo socda, wax xaq ikaama maqnee sugaha lagu hambeeye. siyaasiga aad taageerto waxa aad ku taageertaa in adeerka. mareegaha internetka ee aad inta badan ku xiran tahayna uu yahay midka beeshaada. ninka aad guursatayna aad ku dooratay inaad isku qabiil tihiin. carruurtaadana aad ku barbaariso qabiil. gabadhaadana aad ka hor istaagto inay shukaansi la samayso wiil aan ku qabiil ahayn. haddaba adigaa xaqaagii in adeerka u dhiibtay, wuuna kuu hambaynayaaye iska sug. ileen qufulkii aad isku xirtay adaa furihiisii liqaye, waa inaad u soo celisaa si aad gabadhaada xaqeeda u hesho. dhanka kale waxaan u soo jeedinayaa dumarkeenna Soomaaliyeed inaanay u hanqaltaagin waxa gaaladu maanta la wareegayaan, iyagoo leh xuquuqda dumarka ayaan dhowraynaa. waayo diinteenna islaamka ee suuban ayaa horay u sugtay xaqa qof kastaaba uu leeyahay. waxaa kala xidhiidha in lagu xadgudbo xaqa qof kasta sida nafta, cirdiga, sharafta, maalka, caqliga iyo wixii la mid ah. dhanka kale inay ka dhowrsadaan cudurkan maanta ina dilooday oo ay yihiin gaaska lagu shido ee qabyaaladda. daawadayaal iyo dhegaystayaal, intaynaan barnaamijkii quruxda badnaa ku kala bixin, waxaan wada daawanaynaa maanse qurux badan uu hooyooyinka Soomaaliyeed u sameeyey abwaan Cabdiweli Yuusuf Isxaaq Cabdiweli Soomaali. hidiya hawraarta luuqda, anshaxa galo hoysigiisa, afkaagiyo horumarkiisa, abtirsimo aan haraynin, tilmaan iyo hogol tusaale. hooyadu waa tiirka hoyga, hirdoogliya harabiyeysan, hoggaan heeganoo habqaala. hooyadu waa hanka qoyska, uurkay kugu qaaday waayo, adoo hilibaad hurdaysay, dhicaankeedaad higaysay, duruuftay la hardamaysay, dhibkaa hiigaa la daashay, dhabankaa haara yeeshay, muuqaalkeedaa halaabi, xilliga fooshay haraadi, dhigbax bay hiiqda gaari, horaadkeedaad jaqaysay, dhabtaad hagarle u seexan, dushoo hara kuu ahaata, oraah bay kuugu heesi, asluubtaaday hagaajin, barbaarintay hufnaan u kaabi, halyey bay kuugu yeeri, nacaskay xumaan ka heerin, ayada geesiga ku hiila. adoo hanadoo lixaad leh ayay kuu tahay horjooge, adoo hanadoo garaad leh ayay hamba kaa ilaalin, adoo hanadoo hubqaada dantii hamigeedu raacay, baahida baryalaabtu haysay, adaa hebelow helaya, marnaba kaa haybin mayso. kolkii tabaryari hagaasto, kolkii dhididkeedu hooro, dhankaagana hiil ka weydo, humaagaagii laciifo, hamiga beentaa ku qaado, asxaabta aad kala horayso, xaqeedii aad hilmaanto, hah goortaa kuma tiraahdo, hangaagurro kuguma hayso, cadow kugumay hallayso, la'aantaa hilowgu daashay, adoo keligaa hadaafay, huqdiyo uurkeeda hoose, kasheedu habaar ma siiso. ducay kugu hoobisaa, hanuun bay kula rabtaa, hagaagshay kaa rabtaa, hoygay kugu nuurisaa, ishay ku hamuun tirtaa, laabtii halacdaa hagaagi,
qulubta hilmaanku daynin waxay haysaad haraacan hagbad bay kayd ku haynin adaa dadka ugu horrayn haddaad xaqa hawl yaraysan ruuxii heegmow dhegayso adaa ka hormee balheedhe hankaagu hadduu ku siiyey inaad ifka hayb u yeelan inaad quruxiba u qaadan lixaadku ahaan mahaage da'daadaa ku soo hor joogsan mawdkaan marna kaa haraynin dhashaadaa kugu horboodi tartiib kuu hurutabiyeynin kolkaad harabnimo haleesho hadalkay kugu halgaadi ileen adigaa hambaystee waxaad horay kaydsataa mahadha kugu noqon gadaale qofkii heloo waarid haysta haddana ducadooda hoorsan abaarkii xabiibkeen hibeeyey sallallahu calayhi wasallam jibriil aamiinta hoorshay caasiga helay oo la siiyey allow naga yeelma hooge adaa haystoo awooda allow kuwa moog hanuuni dembiga hooyadeenna hoobi qabriga nuur ugu hilaaci kuwaad harisee badbaada dhibkiya arag hawsha taagan qiyaama xujadood hagaagto allow hooyadeen ka yeelo allow hooyadeen ha hoojin adduunkay ahayd horjooga aakhiro eebbow hagaaji waa qalinkii garyaqaan cabdikariim sheekh maxamuud cabdulaahi suldaanka iyo cabdirasaaq xasan maxamed bisle soo jeedintii afakaadha maxamed axmed daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni gaarka ayaan ku eegaynaa xaqa dumarka ay siisay diinteena islaamka iyo sida ay ula kala dhaqmi jireen dhaqanka Soomaalida ee suuban iyo sabannu jaahiligii islaamnimada ka hor carabtii jirtay waqtigaasi dhanka kaamirada waxa iga caawinayay Axmed Sheekh Cabdi dhanka farsamadana walaalkay Nuur Maxamed tan iyo intaan isugu soo noqon doono barnaamijkan oo kale aan waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgeliyo